we have discussed several issues about security, economical development cooperation of our countries, political issues on the Horn of Africa, especially between our two countries, and we are very thankful for his welcome and cooperation with our two nations. Ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka wada hadleen sidii la iskaga kaashan lahaa qodobada muhiimka u ah labada wadan gaar ahaan arrimaha nabadgelyada, ilaalinta xuduudaha, kor u qaadista dhaqaalaha, ganacsiga iyo baayac mushtarka. We discussed on issues of security because we believe that Ethiopia's security is security for Somaliland, and Somaliland's security similarly is that of Ethiopia. waxaana uu ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu soo qaatay maalgashiga marsada caalamiga ee Berbera oo uu sheegay inay muhiim u tahay labada wadan ee Somaliland iyo Ethiopia. Already started to work to develop Berbera corridor together with Somaliland, and we continue on with our partners to develop this corridor so that we benefit from this development in a win-win manner.